cadaaladda iyo daryeelka u injineer Faysal Cali Waraabe oo maanta warfideenka kula hadlayay hoyga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay dagaalka sababay khasaaraha isugu jira dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhacay deegaanka Tukarraq ee ku yaala xuduudda u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya. injineer Faysal Cali Waraabe dagaalkaasi waxa uu ku tilmaamay mid gaadma ah isagoona sidoo kale ka hadlay khasaaraha ka dhashay. kan in la socdo waxa wada farmaajo xamar baa laga wada Abdiweli wala adeegsanaya maanta ciidamada ka soo qayb galay inay tahay wax la garanaysa in ciidamada ay tahay dagaal Soomaaliya nagu wado ciidamadii Sayrasan ee loo tababaray Imaaraadku tababareen ay ka soo qayb galay waxa ka soo qayb galay kuwii tababarka gaalka lahay Mareykanka Belidogli ee ku tababareen ee lagu tala galay in galgalay ka dagaalamaan special force ka ay ka soo qayb galay oo hadda la haya maxaabiistoodii taas waxay ka marxaatiyaysaa inuu dagaalkan aanu majeerteen oo qor ku koobneen oo majeerteen awood ay Soomaaliya ku soo doortay jilibkaasi ma lehe inay tahay dagaal Soomaaliya oo dedan ay tahay. gudoomiye Faysal Cali Waraabe oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in habeenkii xalay ahaa qaraar la gaaray ku saabsan ammaanka iyo nabad ka dhalinta deegaanadaasi iyo sidii dib loogu fari lahaa wada hadallada u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya. waxa uu sheegay in go'aamadaasi ay horkacisay dawladda Mareykanka oo wada hadalsiisay buu yiri madaxweynaha Somaliland iyo madaxweynaha Soomaaliya. waa sida uu hadalka u dhigay injineer Faysal Cali Waraabe waxaana hadalladiisii kamid ahaa maanta xalay toos dambeysay waxa la gaaray heshiis afar qodob oo Mareykanku uu horseed ka ah in xabadda la joojiyo wada hadaladiisa oo la bilaabo farmaajo la hadlay Abdiweli la hadlay Muuse Biixi la hadlay maxaabiistii la isku celiyo wada hadalada Soomaaliya si loo noolan lahaa lagu wada hadlo heshiiska sax la gaaray haddana Afrika bartikay bayna soo weerareen ashantii barkan soo weerareen anoo dadka Soomaaliyeed intay ma orano waan ku faraxsanahay wala laay waxa leenahay wala jabiyo horta gardaradii waa arkiseen mariyaan social media ka waxay ku hadliyeen talaayarihii baray oo daqaawan. gudoomiye Faysal Cali Waraabe oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu hambaliyay ciidamada qaranka Somaliland ee ku sugan jiidda Tukarraq waxaana ku tilmaamay geesiyaal naftooda hurayaala kuwaas oo guul ka gaaray dagaalka ay kula jiraan Soomaaliya. waa sida uu hadalka u dhigay gudoomiye Faysal waxaan u mahadnaqayaa ciidamadeena geesiyaada iyagoo Sooman la soo gardo gaarsiiyay waxaan gaar ahaan u mahadnaqayaa ciidamada ka soo jeeda gobolka Sool channel uu yahay in ambalash ee maanta geesinimadii biladii Soomaaliyeed qaatay ayaa si gaar ah ciidoodii iyo caarkoodii ayaa daafacay warigi dilka lagu xukumay shalay maqliseen dil baa la ku xigay inaga cadow inaga dhigaysaa nahay cadow manihi Soomaali cadow ma waa kala waa dad isku isira laakiin de kala administration sida Carabta sida European. Sakariya Sudeesi Cabdiraxmaan Daaca telefishinka Ariel magaalada Hargeysa.